salaamullaahi calaykum asxaabteeda qiimaha badan ku soo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkeena maanta waxa inoogu hayaa fikrado ardayga dhaqaale naftiisa ku maareyn karo ka soo geli karaan ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaalkeena tani caruurnimadeeni waxaana la baray in aan aamino in lacag la heli karo kadib marka aan dhammeeyno waxbarashada oo aan helno shaqo wanaagsan iyadoo waxbarashada iyo shaqada wanaagsan shaki la'aan ay yihiin mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee nolosheena balse aniga ahaan ilama saxna fikradaas oo in la xadido rajada lacagteena iyo rabitaankeena haddii aan nahay arday waxaan si buuxda ugu tiirsannahay dakhliga waalidkeena waxaa jira fursado badan iyo sababo aad lacag ku kasban kartid adigoo arday ah oo waxbarashadaada wadatid haddii aad tahay arday dugsi sare oo aan lahayn xirfado gaar ah ama aad tahay arday jaamacadeed waxaad haysaa fursado badan oo ay tahay inaad ka faa'iidaysatid qarniga 21aad waxa uu helay wax qof kasta ku noolaan karo waxa kaliya ee looga baahan yahay qofka waa inuu yahay mid miir qabo waxa lagaaga baahan yahay kaliya inaad miir qabtid oo aad hanato fursad kasta oo dhinacaaga soo marta muuqaalkan waxaan kugu iftiinin doonaa qaar ka mid ah fursadaha dakhliga ka soo geli kara waliba qaabka ugu fudud kuwaas oo si fudud aad ula qabsan kartid oo ku siin kara dakhli kugu filan oo aad ku fulisan kartid rabitaanadaada oo asaasiga u ah dhaqaalaha fikradda koowaad freelancing asal ahaan macnaheedu waa adiga sidee iyadoo lagu saleynayo xirfadaada waxaa jaanis ka heli kartaa shirkad urur ama xitaa qaab online ah adigoo waqtigaaga dhan shaqeynayn qaab online ah ayaad ku shaqeynaysaa qaar kalena part time ahaan inaad ugu shaqeyso laga yaabaa freelancing qaybo fara badan ayuu u kala baxaa balse sanadadii ugu dambeeyay waxaa aad u soo shaac baxay qaybta lagu magacaabo social media marketingka social media kaasoo hab online ah aad suuqgeyn u samayn kartid qaybihiisa kale haddii aan dulmarno waxaa ka mid ah video editingku asigana waa xirfad fudud oo leh jaanisyo fara badan waxaa kaloo ka mid ah graphic designing naqshadeynta ayadana waa xirfadaha ugu fiican ee passive income fiican leh waxaa kaliya aad u baahan tahay inaad lahaatid xirfad kugu habboon aadna in badan soo bandhigtid oo aad ku dadaashid ilaa aad ka noqonaysid professional samples wax ku ool ah aad ugu talagashay inaad dadku kusoo kasbatid oo dad aad ku samaysatidna waa inaad samaysataa oo diyaarsataa waxaa jira website badan oo aad kusoo bandhigi kartid xirfadaada oo aadna ka shaqaysan kartid waxaana ka mid ah Fiverr, Upwork iyo Freelancer iyo wixii la mid halkaas oo aad ka heli karto kumanaan fursado shaqo waxay qaadan kartaa waqti in ugu dambeyntii shaqo la helo laakiin dulqaadka iyo dhabar adaygu hubaal waa furaha guusha sidoo kale waxaad ka heli kartaa boqolaal koorsooyin oo lacag la'aan ah iyo kuwa lacag ah haddii aad rabto inaad baratid mid ka mid ah xirfadahan YouTube waa isha ugu wanaagsan ee wax laga barto ayadoon wax lacag ah ka bixin freelancing waxay soo jiidatay indhaha adduunka oo dhan gaar ahaan intii lagu guda jiray xilliyadii COVID-19 ka soo bilaabanay oo dad badan ay shaqooyinkooda dad badan markay shaqooyinkooda waayeen ayuu freelancing zaad u soo shaac baxay fikradda kale waa inaad samaysaa blog ma jeceshahay qorista hagaag bilaabidda blog waxaa laga yaabaa inay kuu noqoto il dakhli oo kaamil ah si kastaba ha ahaatee tani ma noqon doonto dakhli degdeg ah bilowga blogga laftiisa wax lacag ah kama samayn doontid ilaa aad xaysiis ku xirto buggaaga blog haddii aan si yara faahfaahiyo waxaa dhihi karnaa waa website free ah oo aad soo gelinaysid maqaalo ama articles aad qortay maqaaladaas dadka akhrisanayo ayaa lacag ka samaynaysaa sida YouTube video la soo geliyo camal marka aad bilowdid blog waa inaad dhistaa bloggaaga oo aad hagaajisaa si ay dad badan u yimaadaan oo ay ula socdaan xaysiisyada website lagu magacaabo WordPress ayaa qaab free ah uga furan kartaa kadib maqaalada aad qortay ayaad meeshaas ku soo bandhigaysaa markii aad heshid tiro fiican oo soo booqanayo bloggaaga xaysiis ayaad ku xiranaysaa xaysiiskaas dadka ay arkayaan ayaad lacago ka samayn kartaa fikradda kale waxaad samayn kartaa YouTube channel halkaas oo haddii aad dad badan heshid aad lacag ka samayn kartid runtii maanta in badan ayaa la soconaa YouTube-kaaga haddii dad badan ay ku xirmaan oo muuqaaladaada viewskooda uu saramaro shuruudo ayuu leeyahay runtii shuruudahaas haddaad buuxisid asigana runtii wuxuu ku noqon karaa il dhaqaale oo aad ku maareyn kartid baahiyahaaga asaasiga ah fikradda kale waa inaad samaysid koorsooyin horey ma u lahayd xirfad aad baratay hadday jawaabtu haa tahay waxaad samayn kartaa koorsooyin dadka wax lagu baro oo waxaad ku iibin kartaa
kartaa internetka laga soo bilaabo cunto karinta, maadooyinka aad ku fiican tahay sida xisaabta iyo wixii la mid ah ama xitaa artiska. haddii aad intaa taqaanid waxay ku noqon doonaan ilo aad kugu muhiim ah. haddii aad ku fiican tahay tacliinta ama aad leedahay kalsooni aad arday wax ku bari kartid, hubaal waad samayn kartaa koorsooyinkan. balse dalka qaab online courseska ah weli sidaa uguma badna, laakiin sanadada soo socda waxaa la filayaa inay soo bataan. runtii fikradaha qofka ardayga ku samayn karo dakhli oo uu isu maareyn karo aad ay u badan yihiin, balse anaga ahaan inta macquulka inoo ah ayaan isku dayay inaan idin soo koobo. wadamada waxbarashadooda xoogaa sareyso, ardaygu asigoo dugsi sare aanu soo gudbin ayuu leeyahay xirfado kala duwan oo uu ku shaqayn karo oo intay yar yihiin ayaa lagu tababaraa. waxa uu jecel yahay mustaqbalka isla xilliga ayaa la go'aamiyaa. midda ardaygu waxay ka caawinaysaa inuusan ku wareerin meesha uu socdo iyo hadafkiisa. alle ayaa mahad iska leh. runtii dalka sidii hore ma ahan, dib u soo kabasho aad u ballaaran ayuu sameeyey. insha Allah inuu sii horumaro ayaan rajaynaynaa. intaan ayuu ku egyahay muuqaalkeena maanta. waxaan rajaynayaa inaad wax ka faa'iiday. intaan muuqaal kale ku kulmi doono, sidaa iyo amaano Allah.